nabadda odayaal iyo dhegaystayaal baa imika haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii ciyaaraha ee toddobaadlaha ahaa. gaar ahaan waxaynu si toosa diiradda u saari doonaa ciyaaraha dhici doona maalinta axadda ah. maalinta axadda ah ee toddobaadkan waxaa la ciyaarayaa horyaalka Ingiriiska oo isagu noqda midka keliya ee la ciyaaro wakhtiga ciidda gaalada, halka ay horyaalada kale oo dhani ay fasax galaan. haddaba toddobaadkan waxaa la sugayaa ciyaaro xiiso badan oo dhex mari doona kooxaha kale ah Burnley oo gurigeeda kusoo dhaweyn doonta wiilasha Rafa Benitez ee Everton, halka kooxda la holin laayahay ee Manchester City ay iyadana hoygeeda xasuuqaha kusoo dhaweyn doonto barbaarta ugu hogaaminayo tababare Brendan Rodgers waa kooxda Leicester. dhanka kale Arsenal ayaa iyaduna marti ku noqon doonta garoonka kooxda Norwich oo baryahan calankeedu ciidda uu rafanayo, kaalinta ugu hooseysa ee kala sarreyntana kasoo dhawaaqaysa, halka kooxda Tottenham ay garoonkeeda kula sheekaysan doonto kooxda uu hogaaminayo tababaraha keliya ee madowga ah waa Patrick Vieira. isla maalintan iyaguna waxaa ciyaari doona kooxaha kale ah West Ham vs Southampton, Aston Villa iyo Chelsea, Brighton iyo Brentford. balse baryahan waxaa saaxadda laga laayay kooxdii Manchester United oo garoomada aan muddaba lagu arag. waxaa kale oo xasuusin mudan in la kansalay ciyaaro kale oo dhexmari lahaa Liverpool, Leeds, Watford iyo Wolves, kuwaasi oo dib laga soo sheegi doono xilliga la ciyaari doono.